بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعنا ونكسن صاحب يال والسلامتين من البضجوكتين سلام كديب وحن قال لنا موضوع عادي مهمة وحن قال لنا عاوة إن شاء الله تعالى الصبر أما الصبر وحن أقول نسوي الدين نوام حي صبركم sabir waxa weeye nafta oo lagu xabiso lagu xajiyo shay ay markaas dhibaato dareemayso laguna qanciyo inay u adkaysato u dulqaadato ilaahay subxaanahu wa tacaala suurad qur'aanka ka mid a ayuu wuxuu ilaahay ku leeyahay isagoo fadaa'isha dadka sabray ka hadlaya walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلهي ليه وقتيان ku dhaartay ama casarka dadka oo dhan khasaaro ay ku sugan yihiin ibn aadanka dhamaantii ilaahay wuxuu ku shabahay inay khasaaro ku dhex jiraan khasaarihi baa laga dhigay weel amba meel dadkoo dhan ku wada dhex jiraan afar qolo ilaahay ka dhex saaray afarta qolo waxa ka mid ah qolada sabirka isku dardaaranta sabirku waa shay aad iyo aad u cajiib sabirku waa doonta laga gudbo badweynta mashaakisha iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha haddaad aragto qof walba oo meel gaadhay amba cilmi heer ka gaadho amba hanti heer ka gaadho amba magac heer ka gaadho nooc walba noloshu tahay heer ka gaadhay sabir buu u soo sabray man talaba al-ulya sahira layaali ninka gabayiri ninka meel sare doonayay habeenuu soo jeedaa Bukhari marka laga sheekeeyay qisaskiisa waxay sheegaan in hal kelmad ay sabab ahayd inuu heer ka gaaro kadibna ay sameysay qofka Bukhari la yiraahdo maanta Bukhari waxa sameeyay waxa uu gaadhay heer aw habeenkii 20 mar sare kaco waliba waqtigaas san casriga laambada ma jirin computer ma jirin ma jirin iftiinada faraha badan leh maasho ama iftiin dabbu shidanay ka baqti hadana u shidanay habeenkoo dhan intaasoo wadan buu socdaalayay isagoo hal macluuma meel xis raadinay waa ninka reer ka yaabeen ay yiraahdeen han imtixaano boqol xadiis oo daciifa iyo boqol xadiis oo saxiixa sanaayin asaaniidoodii ay kala haleeyeen ay isku dhex yaaciyeen kadib kala sooc ay ku dhaadeen boqolkii xadiis ee saxiixii buu bartaa dhigay asaaniidoodii buu ku beegay kuwii kale buu bartaa soo dhigay sanadoodii buu afka saaray markaas ay u qireen ka yaabeen marka sabirku waa shay heerka loo gaadho weeyaan waxaanu garanaa quraanku wuxuu ka sheekeeyay nabiyullaahi ayuub alayhi salaam 18 sano ayuu xanuustay ilaa heer uu gaadhay ehelkiisii iyo caruurtiisii dadkiisa ay karhaan markuu sabray ma oran nabi ayuub alayhi salaam ilaahu waan dhibaataysanahay yuu ma oranne ma cala calina wuxuu yiri rabbi innii massani yadurru wa anta arhamur rahimin dhib ay taabtay buuri إلهي وكأقبلي وإلهي فاستجبنا له وهبنا له أهله ومثلهم معه أبا المرين إهل كيسي إن لك بلسي كالصبركو ووحي قفك السميوي مركا طمركا كارينايا وانتظى قل كالي سيدا هارولك وكالي قل ليدا وكالي مركا اللطمو ولا كالهادية إن يرباسو هارلا sabirku wuxuu sameeyaa qofka aad noqonayso ee quruxda badan leh sabir baa ku sameynaya cilmiga oo kale waxa la yiraahdaa al-izzu tahta dhulli waa izzi ku hoosta dhulli waxa la baahan yahay inaad dhulliga hoos barto nooc walba noloshu tahay sabir kama marmayso nabiguna calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minkaas arrimihiisa cajiib buu ku tilmaamay nabigu wuxuu cajaban li amri al-mu'min إن أمره كله خير وليس له ذلك إلا للمؤمن أمرك قفك مؤمن كي وعجيب النبي يقول وحول البخير بس أو وجه حتى يدبي كل عذو النبي يقول وصبره حتى فرحت إيه برار الصوم الله كشكريا قسم الكورة على يلام صاحب يال والشيء أجد عجيبه والنوجب بهيه هنوجه اللي نوح ويان ما أنت صبر كبار الماضي هذا محورك iyo ujeedada mowduucu waxa weeye hadda horumar doonayso
haddaad hanti doonayso, haddaad magac doonayso, haddaad cilmi doonayso, haddii aad shay wanaagsan, haddii aad doonayso dhadhami oo kabo xumadda sabirka. waxaa la sabirku marka hore uu ka qadhaadhaya dacarta, marka dambana axlaa min alcasal uu ka macaan badan yahay malabka. haddii aana soo dhadhamin kulaylka iyo karka iyo qadhaadhka sabirka, ma dhadhamanaysid raaxada dambe iyo malabka macaankiisa ma cunaysid. haddii aad doonayso inaad meel gaadho, haddii aad doonayso inaad aqoon yar ka gaadho, sabir baa dushaada ahaaday. haddii aanan sabir lahayn meel gaadh maysid. waxaad doonayso ma xaqiijin kartid, waayo waxaani sabir buu ku dhisan yahay. haddii aad tahay dadka intay go-aan qaataan haddana dhexda kaga tagay u sabriyay, haddii caqabad ka hor timaado jaha wareeraya, xaqiiqatan meel ma gaadhaysid. noloshu dhammaanteed waa caqabado, laakiin la dabaalo. falxayaatu abadan laa taqbal aducafaa. noloshu sideedaba abadan siday u dhisan tahay ilaahay u sameeyey qof daciifa ma aqbalayso. waa inaad noqotaa qof duruufuhu sameeyaan oo noqda qof adag oo soo baxa, qof shiilan oo waajihi kara caqabadaha si uu ula soo baxo dheemanta badweynta gunteeda ku jirta u raadinayo. haddii aad dusha sare marmarto, shayga macaane gudaha ku jira ma helisid. aan ku dadaalla sabirka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.